Dadnimada iyo damiirku kuma xirna qole iyo qabiil. Muqdisho weli waxay haysataa koox damiir leh iyo dadnimadu ay ku weyn tahay. Qaraxii ka dhaca Soobato ee khasaaraha badan geystay isla markaana lagu waayay dad badan. Mar qura waxaa istaagay dhalinyaro kuwaas oo muujiyeen inay la qaybsadaan dareenka dadka wax soo gaareen, kuwii dhintay ay soo aaseen, isla markaana ay geeyeen halkii saxda ah ee uu lahaa qofka. Kuwa kale ee xanuunsan ee yaallo bartamaha isbitaalada ayay ugu muujiyeen inay weli garab taagan yihiin, ayna yihiin dad Soomaaliyeed oo damiir iyo damqasho leh. Muqdisho ayaa maalmahan waxay martigelisay xanuun. Soobe ayaase mar kale ilintu iyo dhiiggu ku daateen. Aabbayaal ayaa waayeen carruurtooda, hooyayaal ayaa ku waayeen garbihii ay fiirsanayeen, ubad ayaa ku waayay hooyooyinkooda. Waxay noqotay marxalad xanuun badan. Laakiin dad damiir leh ayaa weli ku nool bartamaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Weriyaal iyo dhalinyaro kale, iyo sidoo kale dhalinta dhigata jaamacadaha, iskuulada, xitaa qaar ka dhigta dugsiyada Quraanka Kariimka, mas'uuliyiin dowladeed iyo sidoo kale ganacsato ayaa ka qayb qaateen garab istaagga dadka qaraxii Soobato ay ku waxyeeloobeen, isla markaana khasaaradii ugu xanuunka badneed bartamaha bishaan ee ka dhacday ay ahayd xasuustii ugu yaabka badneed ayay garab istaageen. Koox dhalinyaro ayaa isku soo hooleen inay geeyaan cabitaano, cunno, dhar iyo sidoo kale agabyo kale oo intaas ka badan. Isxilqaam ayay iskugu magacaabeen dhalinyaradan. Cid gooniya maysan ku siinin lacag, laakiin waxay muujiyeen inay yihiin weli dad Soomaaliyeed oo damiir iyo damqasho leh. Muqdisho weli waxay la daalaa-dhacaysaa qaraxyada isxigxiga iyo sidoo kale musiibooyinka. Halkaasna waxaa ku baxa dad qaali ah, kuwaas oo mar qura aad uga murugeysnaa waxyaabihii dhacay. Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah in halka dad badan ay gargaar sameynayaan, kuwo kale oo ficilo intaasi ka baxsan oo aan wanaagsaneyn lagu dhex arkayo gudaha bartamaha caasimadda. Dadka intooda badan waxay ku baraarugeen in dhalinyaradu ay garabka siiyaan walaalaha ay wax soo gaareen ee qaraxii Soobato ee mucjisada iyo sidoo kale musiibada ahaa. Mar qura ayaase laga dareemay in xaaladdu ay tahay mid xanuun badan. Dad badan ayaa ku geeriyoodeen, Allaha u naxariistee, halka kuwo kale oo badan ay yaaleen isbitaalada. Waxayse ahayd xanuun iyo urkutaale. Mar kale ayay Soobato taariikh kale ee gasho oo xanuun badan. Maalin mugdiya, habeen mugdiya iyo saacado mugdiya ayaa markale loo diiwaan gashay laamiga Soobe, oo halkaasi ay ku naf waayeen boqolaal dad ah, halka boqolaal kalena gudaha isbitaalada ay ku jiraan. Laakiin waxaa ammaan iyo bogaadin mudan dhalinyaradii u istaagtay gurmadka walaalahood, isla markaana maal iyo sidoo kale intaba xooggooda ugu deeqeen. Qaar ayaa dhiigag bixinayo, qaar ayaa lacago ku deeqayo, qaar ayaa dhar ku deeqayo, qaar kale ayaa ku deeqayaan inay ka bixiyaan lacag walba oo ku bixayso. Shirkadaha ganacsiga, dhalinyarada, mas'uuliyiinta dowladda, cid kasta ayaa ka qayb qaadatay. Waxayse qabteen shaqo bogaadin mudan. Fadlan qabo muuqaalkan oo la wadaag dad badan, isla markaana like dheh oo sii sheer garay kuna dhiirigeli dhalinyaradan u istaagtay caawinta walaalahood.